بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكلام وعنا وناكسن هالكني وإستيان كنا صوروا هذا برنامج كي بندقة إستيان وأنو برتين هذان وكلينا إنه هذا يدين سومرنا برنامج كايا بآلا بوحانو ديردا كسرنا مرها لحريرا سومالي دا قبل كاي دنيا إنت ذكر وحانو هاد بيدين كوكينا قاركم إذا مرتدا عن سلنا هاي wax ayay ku soo kordhin karaan amuraha la xiriira Soomaalida amaba waa ay ka hadli karaan toddobaadkan haduu eebaydma waxa marti ugu ah barnaamijka Ciisa Maxamed Faradeera oo ah qabiir ka faalooda arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada ee la xiriira xuduudaha isla markaana yiraahdeen sarkaalka howlgala hay'adda IDOF oo iyana ka tirsan aan yiraahdeen la tacaasha arrimaha xagjirnimada ee qaaradda Ciisa ayaana waxaan wax ka weydiin doonaa amuraha la xiriira xagjirnimada iyo sidoo kale saameyntii ay ku yeelatay gobolka Waqooyi Bari ee dalka waxaa ka jiray mushkilad ka dhalatay amni darradii ay soo wajahday qaar ka mid ah barayaashii dalka kuwaasi oo isaga soo cararay gobolkaasi iyagoo sheegay in dawladdu ay ku guuldareysatay in ay ammaankooda ilaaliso haddaba arrimahaasi iyo arrimo badan oo la xiriira gobolka Waqooyi Bari ayaan Ciisa wax ka warsan doonaa Ciisa soo dhaw marka hore ku soo dhaw barnaamijka bandhiga STN ee muqbahiyaha STN bal hadii aad faahfaahin guud naga siiso waxaan ognahay in toddobaadkii la soo dhaafay aad wadeen hay'adina ay waday cilmi baaris ama research ku saabsan marxaladda amni darrida ee saameynta xagjirnimada ee gobolka Waqooyi Bari bal marxaladii ugu dambeeyay ee gobolka bal hadii aad noo faahfaahiso waa maasantahay Cabdi Jaliil iyo STN maartay opportunity ay siiseen ay ku soo dhaweyseen maartay barnaamijkiina aniga sida sheegtaba waxaan maxalli jiray ku takhasusay ama aan ka shaqeeyaa amniga iyo maaragtay nabadda gobolka Waqooyi Bari khaasatan maaragtay dhulka borderka ama xuduudaha oo Kenya ay leedahay Soomaali marka labada wiigood aan soo dhaafnay waxaan sameeyay cilmi baaris oo maaragtay ku saabsan sidii maaragtay amni darrada oo maaragtay kooxaha argagixisada ay ka sameynayaan ama ay ka fulinayaan gobolka Waqooyi Bari say u saameynayso bulshada ku nool gobolka Waqooyi Bari Garissa Wajir iyo Mandera marka waxaan nooga soo baxday cilmi baaristaas in maaragtay dadkii ay cabsi badan ay qabaan oo maaragtay ay cabsanayaan waxa kale oo nooga soo baxday in dadkii gobolka Waqooyi Bari degnaa iyo maaragtay dawladoodii tii hoose iyo tii maaragtay dhexebo ay maaragtay relationship ama facal qeyr uu ka dhaxeyn oo maaragtay la kala shakiisan yahay waxa kale oo noo soo baxday in maaragtay waxbarashadii iyo caafimaadkii maaragtay adeegyadii bulshada ay maaragtay aad u saameysay oo maaragtay macallimiintii dhaqaatiirtii nurseski ay ka soo kala xarreen magaalooyinkii u dhawaayeen maaragtay border sidii ama sub counties-ka border u dhow inay ka soo wada xarreen waxa kale oo noo soo baxday in maaragtay amni darradaas ay community-ga maaragtay ciil far badan iyo maaragtay isla hadal iyo goox ay ka yeerisay waxa kale oo noo soo baxday in dawladdii markii aan wareysanay dadkii dawladda u shaqeynayay saraakiishii ayagan ay shakisan yihiin inay maaragtay dadkan dhibka geysanayaan ay maaragtay kale gacan ka helayaan dadka maaragtay bulshada localka ah oo maaragtay saameynta weyn ay gaarayso marka arrimahaas ka soo baxeen wixii maaragtay laga qaban lahaa arrimahaas ama solutions lagu sameyn lahaa recommendation aan ka bixinay marka weli shaqadii waan ku jirnaa marka reportkayna insha Allah wuxuu noqon doonaa public knowledge waad mahadsan tahay haddii aan u gudo galna waxyaabihii ka dhashay saameyntii haddii aan u gudo galna arrimaha xagjirnimada inta dib ayaan ka eegi doonaa xagjirnimada iyo saameynteeda gobolka Waqooyi Bari mushkilad ayaa ka jirtay labadii bilood la soo dhaafay ee ku saabsaneed arrimahaasi xagjirnimada iyo in ururkii Soomaaliya ka dagaalamaya ay gobolka Waqooyi Bari ka qowleysanayaan oo ay macallimiintii bal maxaa saameyn ka dhashay arrintaasna waxa ka dhalatay saameyn aad iyo aad u weyn waxa ka dhalatay saameynta aad ugu weyn waxa waaye in ilmihii primary iyo secondary akhrisanayaan ay macallin aan noqdaan iskuulada aan tagay waxa kamid ah iskuul la yiraahdo Neb Girls oo ku yaala magaalada Garis waxay dheen waxaan naga tagay 20 macallin soo waa dareemi kartaa 20 macallin oo maaragtay hal iskuul ka tageen saameynta ay ku lahaan karaan marka dhalinyartii wax baranaysay kuwii wixii soo haray maaragtay waxa la isku geeyay in hal class loogu aqriyo macallimiinta soo hareen loo kala qaybiyo ama loo tashiilo iskuuladii ku yaaleen ijaara luuqo iyo maaragtay sub county-yaasha oo maaragtay borderka ku dhow ayaga haba sheegin ba macallimiintoodii iyo maaragtay ardaydii ciidaska joogaan
marka taas waa saameyn aad iyo aad ugu weyn waxa waxbarashada dhaqaatiirtii iyo nurseski ayagana way soo carareen oo maaragtay waxay dhaheen maaragtay safety-gayna ama amnigayna maaragtay wax walba ka daran oo maaragtay way kasoo tageen county-yaashi magaalada isugu imaadeen oo sub-county way kasoo tageen waxay kaloo saameysay dadkii oo maaragtay gobolka degnaa maaragtay cabsi fara badan laba meel ka cabsanayaan waxay ka cabsanayaan dowladda Kenya laamaheeda amniga inay maaragtay operation soo sameyso oo dadkii ay dhahdo inay nimankan inuu dhex qarsoon yihiin oo maaragtay taas way ka baqayaan oo xasuuq wax loo geysto waxay kaloo ka baqayaan dadkii nimanka kor uga imaanayaan oo Soomaali ka imaanayaan oo xaq jirka ama kooxaha argagixisada inay ayagana wax ay maaragtay gaarsiiso ay ka baqayaan la guriyay gubeen maaragtay dad ay qafaasheen oo ay qaateen oo maaragtay ay uga shakisayeen inay dowladda Kenya gacan saar leeyihiin maaragtay county-ga la yiraahdo Ijara marka taas waxa waaye waa tii saddexaad midda afraad waxa waaye dadkii xildhibaanadoodii ama hogaamiyaashoodii oo lasoo maaragtay soo doortay arrintii ka hadlayeen dowladda Kenya ay maaragtay iska dhigatirtay oo ay dhahday maaragtay dadkiini ayaa arrintan sameynaya marka taas dadkii waxay u keentay inay maaragtay dowladoodii maaragtay kalsoonida ay ku qabeen ay maaragtay ay yaraato oo dowladooda ay ka shakiyaan oo maaragtay ay ka sugayeen maaragtay inay security-goodii maaragtay odhagooda ay protect garayso haddiiba ayaga kusoo noqotay ama iyada ay kusoo gedisay dheheen nimankan ay dhahday nimankan na dhibayaan inigaa laga cansaara leh dadkii ayagana maaragtay hadda aad bay maaragtay shaki iyo maaragtay dowladoodii ay maaragtay kalsoonidii ogala laabanayaan waa hagaag gobolka Waqooyi Bari waxaan ognahay inkastoo ay in badan hadleen mas'uuliyiinta laga soo doortay deegaanadaasi ama Mandheera ha noqoto Wajeer ha noqoto ama Gaariso intaba ha noqoto haddii ay arrintan ka hadleen ay dowladda dhexe kala hadleen dowladda dhexe maxay ka heleen oo jawaab ah halkee si u dambeysay ma wada hadleen ma wada fariisteen mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee dowladda dhexe arrimaha amniga iyo barayaasha yarida iyo saameyntaas argagixisadan se kama wada hadleen si toosna uga wada hadleen dowladda uga wada hadleen si dadban uga wada hadleen si dadban haddaan ku dhaho waxaa aragtay guddiga waxbarashada ee baarlamaanka wuxuu u yeeray wasiirka waxbarashada guddiga maaragtay macallimiinta waddanka maaragtay ninka booliista inspector generalka u yeereen oo ay ka wareysanayaan amniga iyo maaragtay macallimiinta kasoo cararayaan gobolka Waqooyi Bari jawaabihii ay ka heleen waxaa ka mid ahayd inay maaragtay dowladda ay haysato warbixin inay dadka ay matalayaan ay gacan saar leeyihiin dadka dhibka geysanaya dadkii ay maaragtay information ay bixinaynin oo dowladdii ay la shaqeynaynin maaragtay macallimiintii amnigooda uu yahay priority dowladda ahaan hadday yihiin maaragtay wasiirkii waxbarashada wuxuu dhahay wiilashii iyo gabdhihii wax ni barteen wuxuu bixiyey tira 24,000 oo arday inay ka bogtay North Eastern 2014 ilaa hadda oo grade fiican haystaan C iyo above inuu maaragtay ay dadkaas wax ay bartaan oo maaragtay macallimiintooda ayaga ku filan iyo maaragtay nurseskoodii ay wax bartaan oo maaragtay meesha ka cilaamiyay markaas taas waa tii baarlamaanka waxaa kaloo soo gaartay inay madaxweynaha la kulmeen oo arrintan ay kala hadleen maaragtay amni darrada iyo waxbarashada iyo saameynta maaragtay gobolka ka jirto madaxweynahan uu dhahay maaragtay niman yahow waxaan rabaa inay la imaatiin home ground solution ama solution ininka maaragtay oo localized haddii aad madaxda taadeen dadkiina ku noqda waxaad la imaatiin solution oo arrintan xag jirnimada iyo arrintan amni darrada gobolkiina ka jirto sidaan maaragtay kula tacaali lahayd waxaad may fariisteen marka mas'uuliyiintii laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari arrintan kama wada hadleen wax qorshe u yaala miyaa jira waqti xaadirka nimanka Waqooyi Bari laga soo doortay madaxda way fadhiisteen arrintan way ka wada hadleen waxay oga hadleen markii maaragtay ay organize gareynayeen BBI initiative oo maaragtay Gaaris lagu qabanayay weli namaysiin report ama wixii ay ku tashteen ama recommendation ay bixiyeen
dowlad walbo ama xildhibaan walbo wixii maaragtay contributionka ay sameynayaan arrintan sidii lagu xakameyn lahaa welina may siinin laakiin inay kulmeen oo arrintan ay ka tashteen wayna soo gaartay. Hagaag haddii ay arrintan sii socoto oo ay dowladdii dhexe xal la timaan weydo oo ay sidoo kale mas'uuliyiintii laga soo doortay ay xal la imaan waayaan maxaa ka dhalan kara arrinta xaggee kusii socon kartaa ay kula tahay xaggee gaari kartaa arrintii haddii anagii oo gobolka waqooyi bari u dhalana xal la imaani wayno dowladdeeni maaragtay dhexena xal aynoo keeni wayso maxaa ka dhalan kara arrintaas waxyaalo badanaa ka dhalan karaa waxaa ka dhalan kartaa inay maaragtay shacabkii kalsoonida kala laabtaan dowladoodii waxaa ka dhalan kartaa shacabkaas inay la shaqeyni waayaan dowladda iyo nimanka saraakiisha dowladda matala oo gobolka ka shaqeeya waxaa ka dhalan karta waxbarasho la-aan iyo maaragta caafimaad la-aan gobolka ka dhacdo waxaa kaloo ka dhalan karta in maaragtay nimanka dhinaca kala jiraan ama kooxaha argagixisada ay ka faa'iideystaan kala jabkaas iyo maaragtay gaabkaas community-ga iyo ka jiro oo maxaa la dhihi jiray dowladooda inay meeshaasba ay ku samaystaan tababaro ama dad ayaga u shaqeeya ama fighters ay maaragtay recruitment ay ku samaystaan oo dadkii dhalinyartii waxbarasho la-aanta ahayd dhalinyartii maaragtay caafimaad la-aanta ahayd oo maaragtay iska joogaan oo dad shaqo aan haysanin oo maaragtay haddana dowladoodii ay maaragtay dhagaha ka laabatay hadday arkaan opportunity ayaga u noqonaysa ay maaragtay ku helaan rag u dagaalamo dagaal lahayn dagaal yahana oo maaragtay ayaga u shaqeeya oo maaragtay dhinaca kale Soomaaliya u aaday ay maxaa la dhihi jiray meesha ka helayaan marka saameyntaas yaa imaanaysaa haddii oo dowladdii iyo dadkii maxaa la dhihi jiray dadka matalaya ama dadka shacabkii ay soo doorteen ay xal imaan waayaan. Hagaagmay marka dowladda arrintaa maysan cabsi ku haynin in gobolkii waqooyi bari nimanka xagjirka ee Soomaaliya ka barbar dagaalama ay recruitment ka sameystaan dhalinyarada ay ka faa'iideystaan arrintaas ma arrin muhiim ah oo in diiradda la saaro u baahnay arrintaas aad bay muhiim u tahay in diiradda la saarano aad bay muhiim u tahay dowladda Kenya kolley qorsheeda way dejisanaysaa sidii ay arrintaas uga shaqeyn lahayd laakiin anaga haddaan nahay maxaa la dhihi jiray dadkii gobolka ka soo baxay dowladda waxaan siinaynaa recommendation meeshii xalka ku jiro aan u sheegaynaa sida dowladda inay maaragtay ragga administratorska ama ragga maamulayaasha ama gobolka maaragtay maamula inay rag Soomaali ka dhigto dadka sirdoonka oo dowladda u shaqeynaya oo maaragtay dowladda u joogo oo xogta u soo aruurinayo inay ka dhigto Soomaali nimanka saraakiisha amniga oo maaragtay wadanka gobolka ka shaqeeyo inay maaragtay priority ay siiso inay ka dhigto wiilasha iyo gabdhaha laga kasoo origin gareeyaan maxaa la dhihi jiray gobolkaas ilaa anagii cadowgan nahayo isku afaan nahay isku jinsiyadaan nahay waa lama la hadli karnaa oo la sheekeysan karnaa marka ninka cadowga kula dagaalayo waxaa la rabaa inaad strategy u hagaajiso maaragtay qof asaga lama caamiltimi karo inaad maxaa la dhihi jiray meesha u dhigto solutionska some of the solutions anaga haddaan la kulnahay aan dowladdu sheegayna kuwaasa ka mid dowladda kolley qorsheeda way samaysanaysaa anaga recommendationka hadda aan u sheegaynana kolley way qaadan doontaa inay ku dhaqmi doontaa aan maxaa la dhihi jiray ka rajaynaya haddii ay ku dhaqanto recommendationskaas anaga aan samaynayn iyo solutionska anaga aan u sheegayno ayna maaragtay noo samayso short term maaragtay solution oo maaragtay macallimiintaas iyo dhaqaatiirtaas oo gobolka ka shaqeynayaan sidii maaragtay loola tacaali lahaa ay noo keento dowladda shaqo weyn inay noo qabanaysaan maxaa la dhihi jiray ka rajaynaa marka qorshe way haysaa dowladda maaragtay qorshe la-aan waayo kuma dhahay nimankaas sidii lagula dagaali lahaa iyo sidii lagu counter garan lahaana kolley dowladda way ka baarandegaysaa shacabkeedina waxay diyaar ku leeyihiin inay maaragtay kala shaqeeyaan sidii arrintaas maaragtay looga ran lahaa nimankaas arrintan ku saabsan argagixisada iyo saameynteeda ee gobolka waqooyi bari waa arrin soo noqnoqotay aanu ognahay maahan markii ugu horreysay ay dhibaatooyin ka dhacaan gobolka waqooyi bari haddana waa ay kasii dareysaa oo ismaamulka Gaarisa Barasaabko isbuucan hadlaya waxa uu sheegay in aysan adeegyadii asaasiga ah aysan geen karin goobaha ka fog caasimadda ee Gaarisa
bal adeegyada bulshada haddii aan u nimaan ilaa xaggee ayay awood u leedahay dowladda inay gaarsiiso markii loo yimaado dhibaatada ka jirta argagixisada gobolka? waa dowladda waxay gaarsiini kartaa ama hadda haddii aan scan gareeyo Garissa County, Garissa Town, magaalada Garis, isbitaalka ku yaalo, shaqaale waa uu haystaa, laakiin isbitaalka ku yaalo Lugo ama Ijara ama Sagailu ama Galmagala ama ku yaalo Liboy, dhaqaatiirtiisii iyo naasaskiisii way soo carareen. gaarigii daawada geyn lahaa oo ka baqayaan dhulka loo geliyo maxaa la dhihi jiray IED ama bamba loo geliyo dhulka. dhakhtarkii dadka u shaqeyn lahaa ama u adeegi lahaa bulshada u adeegi lahaa wuxuu ka cabsanaya in maarta la soo weeraro oo la dilo naftiisa ku soo cararaya. marka macallimiintii ayaga waa ogtahay way soo maaragtay soo wala baxeen ayagoo dal way ka soo tageen gobolada dan ku sheegayo. dowladdiina maaragtay dhexe functionkeeda ma ama awoodeeda maaragtay waxbarasho kuma jirto inay maaragtay waxbarashadii countiga ay u adeegto dadka waxbarashadii macallin qoristii iyo macallimiintii managementkoodii waxaas dowladda dhexe shaqadeeda maahan. waa dowladda dhexe dowladda hoose oo countiga shaqadeeda maahan, waa dowladda dhexe shaqadeeda. marka dowladda dhexeena haddee mowqifkoodii way caddaystaan maaragtay inay macallimiintaas naftoodii ay ka muhiimsan tahay waxbarashadii maaragtay dadkii ilmahii ay waxbarayeen. marka dowladdii hoose oo countiga hadday shaqo qaban lahayd gacmihii ka xiranta ilaa waxbarashadii waxaan shaqadeeda maahan oo maaragtay shaqayda hoos maanaysa maahan. haddii daawi waxay geyn lahayd waa la baqayo maaragtay jidka in maaragtay lagu sameeyo arrintaas laga baqayo. haddii macallimiintii iyo maxaan ka wadaa naasaskii dhaqaatiirta ay qortay shaqa meeshii geyni lahayd raggii bay cabsanayaan oo maaragtay inay meeshii wax ku lagu waxyaaleeyo ama wax ay ku gaaraan ay ka baqayaan. marka dowladdii focuskeeda hadda wuxuu noqonaa dowladaha gobolka oo hoose countiyaasha inay maaragtay dadkii magaalada dhexdeeda maaragtay meesha amnigeeda uu yar xasiloon yahay oo magaalooyinka Wajir Town iyo Mandera Town iyo Garissa Town inay maaragtay focus ka saaraan oo maaragtay dadkii u adeegaan. dadkii kale oo jiray sub countiyahan ay magaalada soo aadaan oo maaragtay adeega magaalada soo doontaan. challengegeeda leedahay iyadana waa long distance iyo lacagtaas transportkaas dadkii ayagoo xanuunsan laga yaabo inay jidkii haddana ama traagii ay soo galeen oo maaragtay dhib kale saameyn weyn kusii lahaado jiradii marka horeba ay u yareen. hagaag haddii aan aadno waanu ognahay in arrimaha xuduudda iyo nabadgelyada aad wax kala socota, bal markii aad research sameyseen ama la ogaaday sidee ayay suurtagal ku noqotay in iyadoo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa aan ognahay inay si official u furnayn ay xiran tahay oo si dhuumaaleys lagu soo gudbo in ay nimankan ilaa ay xuduudda inta la eeg Soomaaliya inay ka soo gudbaan ay Garissa iyo agaarkeeda ay falan ceenkan ka sameeyaan? arrinta maxay ka dhigan tahay? nio borderka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeyo aad buu u weyn yahay. border dheer waaye. borderkan Poras waaye. wuxuu u badan yahay duur. nimanka saraakiisha borderka noo alaaliso waxay leeyihiin points oo maaragtay ay degan yihiin oo ay borderka alaaliyaan. laakiin nimankan meeshii nimankii saraakiisheen noo ilaalinaysa borderka ay degnaayeen ama ay maamulayeen kama soo galaan. waxay ka soo galaan maaragtay Panyarut waxa la dhahaa ama duurka maaragtay jidada yar yar oo ay hagaajisteen. gaari kuma soo galaan oo maaragtay waxa shaqartooda la maqlaayo oo gaarigoodii xinkiisa la maqlay maahan. lagu ay ku soo galaan dameeray ku soo rartaan hubkoodii iyo waxoodii. saasay waddanka ku soo galaan. markay waddanka soo galaan dadka ugu hor arka waxa waaye reer baadiyaha dadka xoololeyda maaragtay duurka xoolaha ku haysto. markay arkaan way soo sheegaan dowladda u soo sheegaan. waxay dhahaan nimankeen aragnay oo dameero soo wataan oo soo socdaan oo waddanka soo galayaan. dowladdii waxaa la rabay inay ka hortag samayso oo maaragtay nimanka raadkooda ay raacdo oo maaragtay meeshay soo galayaan iyo meeshay marayaan ay ka hortagto maaragtay in nimankii banaanka nooga reebto. markii informationka ay hesho dowladda oo community-ga ay ka hesho oo dadkii bulshada ay soo sheegaan
saraakiishii amniga oo dhulka borderka maamuleysay kama hortagaan nimankii maaragtay nagama celiyaan ruuxii u report gareeyay ama ruuxii sheekada u sheegay ayaa su-aalo loo qaadanaa oo maaragtay maxay qabeen maxay wateen meeqay ahaayeen maaragtay ruuxii la dhaha soo noqo maaragtay information fara badan iyo su-aala ayaan maxaa la dhihi jiray kula lahanaynaa marka dadkii marka dambe way cajisayaan oo maaragtay hadday arkaan nimanka waddanka soo galayaan waxay ka baqayaan maaragtay su-aalihii faraha badnaayeen iyo maaragtay iyo waxqabadyaradii iyo kahortagyaradii ayay arkayaan marka dadka way cajisayaan marka saasay kusoo galaan raggan waddanka borderkaas weyninka oo dheer oo maaragtay duurka ah oo oona lahayn meel maaragtay ay ka hagaajisteen jidad yaryar oo ayaga maaragtay luuq ay soo maraan oo ay soo galaan ya marka dawladda suurtagal ma tahay in la hubeeya amaba la qoro ciidamo shacab ah amaba sida macuusleyda loo yaqaano oo duurka ku jiro oo reer miyiga la falgalo arrimahan halkay ku arkaan kaga hortagi kara suurtagal ma tahay arrintan lagumana fikiray waa sida hadda aan u malaynayn anaga inay solution ku jirto inaan dhalinyarteena la tababaro oo maaragtay la hubeeyo sidii dhalinyarta qabiilada kale oo borderka degan keligeen border ma degnin oo keligeen cadow ma lihin waxaana la degan borderka qabiil la yidhaha Turkana waxaa jira qabiil la dhaho Bokot waxaa jira Gabra iyo Booran oo Marsabit degan Turkana County waxay border dheer leeyihiin oo maaragtay Kenya kalota borderka Ethiopia qabiilada jiraan Ethiopia dhinaca degan iyo dhinacan Uganda Karamojong qabiil Karamojong la inta ka degan intana waxa ka degan qabiil yiraahdo Dasanaj mar walba is dagaalana maarta xoolooyi oo Kenyankii Turkanadii iyo Bokotkii oo Kenya dhacay soo jireen ay u soo duulaan ay qaadaan marka community-gaas Turkanadii iyo Bokotkii iyo maarta gabrada oo degan Kenya side waxay leeyihiin wiilal oo maartay KPR la yiraahdo ama home guards la yiraahdo oo hubeysan oo iska ilaaliyaan qabiilada jiiraanka leh oo Ethiopia iyo Uganda ka soo duulayaan oo xoolahooda soo duulayaan iska celiyaan marka anaga context-keena waxaa nagu soo duulayaan al-shabaab Soomaaliya ka soo duulayaan way hubeysan yihiin dawladdii markaan u sheegno ka hortagooda aad buu u yar yahay oo maaragtay waxa uu keenaya anaga ma kasayn ma cabsanayaan I don't know marka waxa aan solutions ka aan ku darnay oo dawladda u sheegaynay inay dhalinyarta shaqo la'aanta ah oo gobolladeena joogaan oo maaragtay waxba aan haynin in amal loo yeelo amalka uu ku wado waxa waaye waxaan amal ugu yeelaynaa number 1 waxaan ka mashquulinaynaa inay maaragtay ay noqonin dad maaragtay amal la'aan oo la duufsani karo oo maaragtay nimanka ay duufsani karaan midda labaad taa xirfad iyo maaragtay inay jaamacado iyo college iyo la geeyo maxaa la jiray saameyn ku lahaanaysa midda labaad kuwan aan waxba baranin oo gobollada joogaan in la hubeeyo hubka lix laguma dhaafaa in la tababar markii la siiyo oo la hubeeyo in loo qoro bishaar ama loo qoro maaragtay stipend wax la dhaho oo ayaga ay maaragtay nafsadoodii maciishadoodii mustaqbalkoodii iyo reerahoodii ay ku maarayaan haddii wiilasheena mishaar iyo hub la siiyo waxaan aaminsanahay inay nimankaas ay maaragtay naga reebi karaan macallimiinteeni dhaqaatiirteeni nurseskaani ay ayaga alaalini karaan oo maaragtay dawladda waxooda ay noqonayso supplementary ama complementary oo maaragtay shaqada wiilasha ay qabanayaan ay maaragtay ay xoojinayso waxaag ciidamada haddii aan dib ugu laabano xuduudda suurtagal ma tahay amaba amuuraha xuduudda la xiriira suurtagal ma tahay in dawladda Kenya si ay arrintan u xallisaa mushkilada ku haysa shacabka gobolka Waqooyi Bari iyo guud ahaan xitaa threat ku amaba ku waxa loo yaqaano argagax gelin ku haya amaba ku haya hanjabaad ku haya in xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalka la xiro waan ognahay in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waqti xaadirkan uusan ahayn mid saa u falfalacsan go'aankaas ma qaadan kartaa kulada dawladda inay xirto xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya si ay u difaacdo dalkeeda iyo dhulkeeda xuduudka dawladdu way xiran yahay xuduud furan ma jirto laakiin sida anaga aan hal dhigi jiray aan rabno aan Soomaalida way bari aan nahay
حرمنا إن كينيا حدود كاس أي فرطة لكن أي حجيسو وحسوا قلاي وحكا بحاي ما عرفت تذكي إسكفرتو جناحسي الإسكفرو هدي وهذا سوء أد أحرين هاي دقدقاقي يير جناحسي يير إسكو صعد كي يير مركي سد حدث بأي رادان information كي ييرانا مركا أنا وغيبري information عن كل هنا إن دقاقنا حولها هنا نعس كلا جيسنو وجناحسي عن كسميسنو عن إسكو صعراني رجن جيران كين الصومالية مركا إسكو ولا صعرنو information هلينا information كا عن هلنا يعني دولة اللي وداقينا دولة information كي ما عرفتي يكون رقميسا أو ما يكون أكت كرينيسا حتى information أهلنا first مركان هلين وحاول مركان رجع يسوقوا يعني أو كينيا جودها يوصلان ياله هلا information إنه يسوق لها يعني لكن قرشه هذه يا بلان هذه يا ملاك إمادني واحد البو موجاني كرنا لكن سيمكو موجاني كرنا مركي بودر كاس isku furo dadkii isku socdaan dadkii ay ganacsadaan dadkii ay maartay wala sheekaystaan dadkii ay maartay isa guursadaan oo maartay la xiriiro oo la isdhex galo markaas la helaa information dawladda information fara badan ay helaysaa ayadoo ka helayso dadkeedii maartay borderka ka shaqaysanay waxaan Soomaaliya argagixisada ka howlgasha ay al-shabaab ee saameyntan ku haysa dalkan Kenya waxa ay sheegaan in sababtu ay tahay in Kenya ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan ama nabad ilaalin ka joogaan Amazon Ethiopia Soomaaliya sidoo kale Ethiopia ayaa ciidamo ka jooga dhibaatooyinka inta ka dhacana kama dhacaan marka xaguu ka imaanaya jirjiraan Kenya kaga imaanayo oo ay u aaninaysa al-shabaab in ciidamadeeda ay Ethiopia Kenyanka ay Soomaaliya ku sugan yihiin iyadoo aan ognahay in ciidamo kale oo Afrikaan ay ku sugan yihiin Soomaaliya maxay Kenya taagid ugu noqotay al-shabaab arintaas aad u soo noqotay وانا تجننا إثيوبيا وان كشقيا وان صور استي سراكيشو دي تتكودي نمبر 1 إثيوبيا وحلي ذا هاي دلنيار هو بيسان أو توبرن أو تذكر local community كم الصومالي ذا حدود كلا صومالي كيما دان ولا دولي بوليس رجع سجوجا oo maaragtay federaalka saraakiishooda la shaqeynayaan oo xuduudadooda difaacanayaan number 2 shicibka Ethiopiaanka ah oo Soomaali la leh xuduuda way hubeysan yihiin cunuga yar ama wiilka geelka la jiro qorigiisu iska wataa geelkiisu iskala jira cadow hadduu arko وسكريبة مدة التحد شعبك أو مارتي صومالي ذا إثيوبيا أو حدود لله صومالي وحي أركان تعالوا هاي تشقين يصدقوا أركان كل شيء جاي حيو شيء جاي قبل لي وحواي حافظ ده هوسه مارتي من كمان ملكاي قبل لي جالس وشيء جاي حنا من aan ka shakinay oo maaragtay saas labiskaas leh ayaan soo galay wadanka meeshaas soo maray anoo geelkeeda la jiraan arkay qabilayaashii waxay la wadeegayeen informationka askartii oo maaragtay dhalinyartii oo maaragtay localka iyo federaalka iyo saraakiishoodii ruuxii wala soo qabanay waa laga hortagaa saddexdaas shay oo arintaas oo weyn oo Ethiopia ay sameynayaan Kenya dhacay laga ma sameynay number 1 hadii cunugii ama ninkii geeljirihii uu soo sheego laga ma hortagay raki sida Ethiopia number 2 shacabkii ma hubeysno oo maaragtay hub ma haystaan shacabka ay isku difaacaan number 3 maleeshiyad ama dhalinyar oo maaragtay Kenyan oo hubeysan oo gobolladeena joogan oo al-shabaab hadii ta la arko naga celin karaan ama ka hortagi karaan ma haysano saddexdaas arrimood ama saddexdaas fakta oo aad u weyn ayaa maxal jiray gobolka waqooyi bari oo Kenya ka jirta sidaas ayayna Kenya maaragtay
dulduleelo u leedahay oo maaragtay al-shabaab uga faa'iidaysanaysa. وهاك نواس كسول عم دونا قدر هالشيء كذي وهاك داود يال هالك دولي نقل صوتان وإستين حرمت الحياة أنا كلنا هاي مقالة تاني نيروبي وحانو كهدينا مرها لحيد حق جنمدها ما بعرف كحسدا يوصامين تا يكوي لتي قبل كوقوي بريء دالك قدر هالشيء كذي بيان دب سوس ولا عم دونا هدو إيه بقدره. كان يوا بنديقو كوسو قد بنا حقها كادهسون ma u baahan tahay inaanu ku falanqeyno dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhaca hareerahaaga ma jeceshahay in lagaaga mahadceliyo dadaalkaaga isla markaana aad toos ugu xirnaato hoggaanka sare ee dalka. On behalf of all Kenyans, let me congratulate you on winning the Global Teacher Prize. tahay inaanu wakiilkaaga noqono xogaha daahsoon ee dunida isla markaa ay dhacayaan. diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed? diyaar ma u tihiin in la idin qarameeyo? halkani waa STN kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga STN. haddaba ku xirnow barnaamijka bandhiga STN habeenada Isniinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista. magacaygu waa Cabdijaliil Cusmaan, halkani waa STN. warda waa gabar dhalinyaro ah halkan waxay u imaadaa maalin walba inay ka iibsato ubax. hase ahaatee ninkan dhalinyarada ah ayaa jeclaystay inuu burburiyo nolosha ay gabadhan ku jirto. wuxuu taleefanka kula hadlayaa warda walaalkeed wuxuuna u sheegay in walaashii ay dayacan tahay oo ay u baahan tahay in la ilaaliyo. warda walaalkeed oo lagu magacaabo Samiir ayaa weydiiyey inuu isu sheego qofka uu la hadlayo. hase ahaatee ninkii dhalinyarada ahaa ayaa u sheegay Samiir inuu u soo wacay oo kaliya inuu walaashii ilaashado oo uu ka ilaashado qolada ay maalin walba ubaxa u geyso. kadibna wuxuu ku dambeeyay taleefankii. Samiir wuxuu qaatay hadalladii loo sheegay wuxuuna markiiba soo dabagalay walaashii. warda halkii ayay tagtay waxayna bilowday inay iibsato ubixii ay maalin walba u imaan jirtay inay ka iibsato dukaanka. kani waa ninkii dhalinyarada ahaa wuxuuna ku faraxsan yahay sida wiil iyo walaashii uga dhex shaqeeyay. Samiir oo ah warda walaalkeed aad ayuu uga carooday markii uu arkay walaashii oo ubax iibsanayso wuxuuna go'aansaday inuu dilo walaashii. hase ahaatee wuxuu ku fakaray mar walba inuu soo arko qolada ay ubaxa u geynayso isla markaana iyaga uu kurka ka jaro. wuxuu soo dabagalay walaashii oo u socota halkii ay ubaxa u iibsatay
waa hagaag daawadayaal isku soo noqdo wanaagsan qadarkaasi nasashada ah haddii aan halkaasi kaga soo laabano weli waxaa daawanaysaan barnaamijka bandhiga STN oo si toos ah idinkaga imaanaya muqbaahiyaha STN xarunta dhexe uu telefishinka ku leeyahay magaalada tani Nairobi waxaa marti ugu ah Ciise Maxamed Faradheere oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada ee xuduudaha la xiriira Ciise isku soo noqdo wanaagsan mar kale waxaan rabnaa inaan u guda galno arrimaha la xiriira Kenya iyo Soomaaliya amaba Kenya iyo Jubbaland dawladda Soomaaliya isbuucii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay soo saartay warqad ay ku sheegaysaa in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya ee arrimaheeda gudaha in Kenya gudaheedii ay amni darro ka jirto oo iyana lagu eedeeyay in ay dal kale faragelin ku hayso arrintaas maxay muhiim ugu tahay Kenya kula tahay Kenya arrintaas muhiim uma ahan ka shacab ahaan shucuurteena naga hadday aan maxaa la jiray sheegareyno laakiin Kenya iyada muhiim ay u aragtay dawladda Jubbaland marka hore la dhisay Kenya dhistay Kenya laga abaabulay Kenya maartay laga duulay watii laga xoreeyay Kismaayo nimanka argixisada Kenya markii hore oo maartay ay dhisaysay Jubbaland waxay u dhistay inay buffer zone ka dhigato oo maartay dhibka al-shabaab ay ku hayso national security Kenya dhibka al-shabaab ay ku hayso tourismka ama dalxiiska Kenya oo maartay dhaqaale fara badan ka soo galo inay maartay iskaga baaciso ay u hagaajisay Jubbaland dawladda Jubbaland ay hagaajisay Kenya waxa uma tarin oo maartay iyadaaba maartay faraha ku banaysa oo maartay nimanka argixisada qatar ku hayaan oo maartay intaas oo falal ay Kismaayo ka dhaceen marka Kenya waxay Jubbaland ay u sameynayso ama u faragelinayso waxa waa inay buffer zone kaas maartay security-geeda ay iskaga ilaaliso oo al-shabaab ay dhinacaas iskaga xirto arintii oo badda Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ka dhaxeeyna waad ogtahay xuduudaas wuxuu ku yaala Jubbaland iyo Hoosimana iyadana taas waan u maleynaynaa inay maaragtay ay kasii strategize gareynayaan oo maaragtay ay Jubbaland faragelinteeda ay u saameynayso Kenya foreign policy-geeda waxaa haddii marka ay Kenya ku hungowday damaceedii ahaa in ammaankeeda iyo xuduudaheeda ay ku ilaaliso in ay Jubbaland qabato ay gacan ku hayso oo ay taageerto 9 sano ama 10 sano kadibna ay arrintii jugjug meeshaada joogo oo ay Kenya xitaa ammaankeeda weli u qalqal ku jiro oo gobolkii waqooyi bari ay mushkilada ka taagan tahay hadda soo go'aan uma baahna inay dawladda ka gaarto amurahaas go'aan weyn la rabo inay dawladda Kenya ka gaarto dawladda Kenya waxa la rabaa inay go'aan ka gaarto arrintan Jubbaland go'aanka ugu hore waxa waay waxa jira dhaqdhaqaaq mobilization ay Somali federal government ay sameynayso oo ay rabto inay ku xoreyso gobolka maqan ama degmooyinka ka maqan Jubbaland oo Buale iyo Jamaama iyo Jilib iyaga soo dal oo Soomaali ay rabto inay amisom kala kaashato oo maarta la xoreeyo gobolkaas haddii gobolkaas la xoreeyo national security Kenya ugu fiicnaan oo maartay security-geena aad ba maxal dhigi jiray uu adkaana ilaa nimankana dhibaayeen ba meesha hadii laga sifeeyo Kenya waxa la rabaa marka foreign policy-geeda inay bedesho maartay federal government Nairobi Muqdisho ay wala shaqeeyaan oo si maartay hoose ama maartay walaatinimadii hore iyo maartay facal qeyrkii fiicnaa oo strong ah ay soo celiyaan waxa la rabaa inay Kenya ay ka dhaxbaxdo ama ay faragelintan ay ku sameynayso federaalka u dhaxeeya iyo Jubbaland issues-kaas inay maartay dhaxdhaxaad ka ahaato oo maaragtay sidii Uganda, Burundi, Sierra Leone, Ethiopia oo ayagana ciidamo ka joogan oo Soomaali ay dhaxdhaxaad ugu yihiin waxa ka socda Soomaali iyo federaalka iyo maaragtay dawladaha oo dawlad goboleedyada inay neutral ka ahaato oo maaragtay foreign policy-geedii ay saameynin maaragtay Soomaali iyo maaragtay xarbiga ka jiro federaalka iyo dawlad goboleedyada waxa kaloo la rabaa inay Kenya ay maaragtay ka dheeraato arrimaha
oo maaragtay qabaa'ilka oo maaragtay tribe mobilization oo maaragtay ka jiro gobolada waqooyi bari khaasatan Garissa iyo maaragtay Wajeer oo ku wajahan maaragtay Jubbaland inay iyadana maaragtay gacmaha ka laabato oo maaragtay ay dhexgelin oo maaragtay arrintan ay ka dhigan arrin maaragtay qabiil ilaa qabiilka dhinacan degan iyo qabiilka dhinacaas Jubbaland degan waa laba ruux oo dad waxaa waaye oo isku jinsiyada oo kasoo wala jeeda hal maaragtay qabiil marka haddii ay politicize garayso ama ay siyaasadayso maaragtay qabiilkaas iyo mobilizationkaas hadda ka socdo Jubbaland iyo maaragtay gobolka waqooyi bari national security-geena iyo amnigeena iyo maaragtay qalqal u gelinaya marka Kenya waxaa la rabaa inay neutrality ay muujiso inay neutral ka ahaato arrinta maaragtay Soomaaliya ka jirto inay la shaqeyso AMISOM iyo maaragtay dowladda federaalka sidii maaragtay lagu maaragtay xoreyn lahaa dhulka ka maqan Jubbaland oo iyada Bavason ay maxaa la dhihi jiray u ah national security-geeda iyo maaragtay interest-keeda sidaas ayaa la rabaa inay Kenya maaragtay ku wajahdo foreign policy-geeda Soomaaliya ku wajahdo. Okay, isma dhihi karna haddii aan dib u laabano go-aankii 2012 haddii aan qaldanayna ay Soomaaliya ciidamada ugu dirtay Kenya inuu ahaa go-aan lagu degdego oo aan weli natiijadiisa lahaynin waana ognahay 2012 wixii ka horreeyay aad ay u yareedeen arrimaha la xiriira argagixisada ee gobolka waqooyi bari arrinta go-aankii dowladda ay qaadatay 10 sano iyo 9 sano ka hore weli natiijadiisii maxay karnaa markii go-aankaas dowladda ay qaadanaysay dowladda Kenya waxay la kulantay cuqaashii culmaaddeenkii madaxdii maaragtay odayaashii gobolka waqooyi bari dadkii waqooyi barina waxay dhaheen Kenya u sheegeen inay wadankan ay gelin oo ciidankeena ay maaragtay Soomaaliya gelinin laakiin Kenya way ku adkaysatay waxay dhahday dalxiiskeeni iyo security-geeni iyo maaragtay lasoo galay oo lasoo farageliyey waxaan rabnaa inaan maaragtay nimankaas meesha ay joogaan aan iskaga reebno oo maaragtay xagga aan galno Bavason aan hagaajisan okay waxaa la yidhahdaa taladayna naga diideen waxaa samaysiin xuduudadeena noo adkeeya ilaa markaan galno meeshaas oo nimankaas aan bixinno oo maaragtay way soo retaliate garaynayaan ama way arsishay bilaabayaan annagayna nagu soo noqonayaan waxaan rabnaa hadda dowladdeena tihiin oo ku adkaystay inaad gashiin inaad xuduudada naga adkaysiin xuduudadeena maba adkabo taladii hore oo maaragtay alla bixiyana way Kenya way diido watii ay Soomaaliya ay gashay Jubbaland watii ilaa Kismaayo ay tageen marka ninkii la geliyay meesha ama ninkii meesha la geeyay oo madax laga dhigana Kenya waxa uu tiri laayay maaragtay nimankii oo argagixisadii wadanka qalqal gelinayeen oo ka qaban laayay marka challenge-kaas iska jira solution-kana wuxuu ku jiraa inay maaragtay Kenya iyo Nairobi iyo Muqdisho ay si close ay wada shaqeeyaan oo maaragtay laga wada tashado nimankan looma soo jeediyay markii ay arrimahan soo baxeen amni darrada la xiriira ee u dambeeyay sanadihii u dambeeyay ka dhacay gobolka waqooyi bari in ciidamada Kenya laga soo bixiyay gudaha Soomaaliya arrinta soo jeedintaas dowladda looma sameeyay oo Kenya inay ka soo baxdo Soomaaliya ka soo baxdo waa loo sameeyay maaragtay shacabka waxay dhahaan Kenya nooga soo baxday meesha border-keena ku ekaato maaragtay border-ka naga ilaaliso laakiin shakhsiyaad oo maaragtay interest-kooda maaragtay ayaga fiirsanayaan oo maaragtay la leh dowladda hadda maaragtay nimanka hadda Jubbaland haystaan la leh oo maaragtay madaxda Kenyana ka mid ah oo gobolka waqooyi bari ka soo jeedaan ayaa maaragtay interest-kooda ayaga ay fiirsanayaan oo rabaan inay Kenya maaragtay meesha kusii jirto oo meesha Kenya ay kusii joogto oo maaragtay maamulkoodana ay rabaan meesha inuu maaragtay saas ku ahaado maaragtay uu ku joogo okay waa hagaag Kenyana ay walaalis okay waa hagaag isbuucan gudihiisa laba cisho ka hor ama isbuucan gudihiisa aynu ku guda jirno xaalad qaraar ah oo dagaal gacan ka hadal ayaa ka dhacday xadka kala qaybisa Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan balad xaawo oo ka tirsan gobolka Gado oo Soomaaliya ka tirsan dagaalkii waxaa la sheegay in uu soo gudbay xitaa oo ay saameyn ka soo gaartay reer Mandheera sida ay mas'uuliyiinta qaar sheegayaan
marka dowladda xaggee ayay mushkiladan ka taagan tahay oo intaan oo dhibaato ah qaar gacan ka hadalaha iyo qaar argagixisaha ay gobolkeeda iyo dalkeeda ay ka dhacdhacayaan oo ay wili indhaha wad maxaa waaye waxa dowladda arag la-aanta ku riday oo mushkiladan ay ka taagan tahay xaggee dowladda Kenya sidaan ku sheegay rag ka mid ah oo dana shakhsiyaad wataan iyo horta wareerinaya ama habeen maxaa la jiray dhuminayaan oo maartay advice aan ku habboonayn siinayaan nina jira oo maartay dowladda federaalka ay qabsatay oo dambi maartay waaweyn ka galay Soomaaliya ninkii wuxuu wasiirka ahaa Jubbaland waa la qabtay watii Muqdisho lagu qabtay wuu soo baxsaday Kenya wuu soo galay Kenya haduu soo galay wuxuu sii aaday Mandera oo xuduud la leh Soomaaliya balaaha ninkii markuu magaalada imaaday ciidankiisii uu aruursaday soo ciidan wato inta maray Kenya waxay siisay safe space ay siisay uu maray uu dhex maray Kenya Jubbaland ilaa iyo maaragtay Mandera tagay Kenya inta kama hadlin hotel u tagay ciidamadiisu uu aruursaday wuxuu damcay inuu maaragtay gada uu maaragtay ka galo balaaha uu saas maaragtay gada ugu soo celiyay gacanta maxaa la jiray Jubbaland hadda gada gacanta waxay ku jirtaa federaalka marka ninkii markuu Mandera soo degay shacabkii iyo madaxda reer Mandera way istaageen dowladda la hadleen waxay ninka naga dhax bixiya ama Soomaali naga geeya ama Kismaayidu ka imaada lagu celi dowladda may dhig jala qomaysiinin waxba kama dhigaysan madaxdii way hadashay way booqday madaxdii oo reer Mandera dadkii waa booqeen ninka naga la bixiyeen waa maaragtay la dhageysan waayo Kenya way maqli waysay marka ciidamadii Soomaali oo balaaxa joogaan iyo ninkan ciidankiisa oo maaragtay Mandera iyo balaaxa u dhaxeeyo ayaa isku dhaceen khasaare fara badan ay imaaday saameyn fara badan ay ku lahaatay reer Mandera hadda Mandera maaragtay dowladeedii iyo shacabkii dhibaa soo gaaray guriga gubteen dad maartay xabad ku dhacday oo maartay wiifta oo Mandera town dowladii dhexe dowladii hoose waxay maartay kala dirtay shaqaalaheedii oo ay leedahay amnigiinay qalqal ku jira Kenya wili ninkii way waan bixiyay waan bixinay maana bixinin maydin Kenya waa ku dhex jira ninkii wasiirkii oo soo baxsaday oo maartay la raadinay marka waxa soo idilna waxay u dhacayaan dad shakhsiyaal dartood oo maartay interest-kooda ay ku fiirsanayaan marka maxaa isleeyahay yaa qaaday mas'uuliyadda dhibaatadii ka dhacday balad Xaawa iyo Mandera gaar ahaan markaan ka soo tagna balad Xaawa ilaa waa Soomaaliya haddii aanu nimaano arrimaha Kenya inagoo dabada hayna arrinta Mandera ka dhacday dadka dhintay iyo mushkiladaasi iyo in shaqaalihii la kala diro halkaasi ay dhibaatooyin ka dhacaan mas'uuliyaddeeda qaaday dowladda dhexe qaadaysa ama ismaamulka Mandera qaadana ma ismaamulka Mandera ma qaaday ismaamulka Mandera uu ka soo horjeeday ninkaas wuxuu dhahay naga la bixiyo dowladda dhexe oo Kenya oo maartay awood u leeyahay ninka bixiso oo awoodeedina marka hore ku keenta Mandera ayaa mas'uuliyadaas qaadaysa maxay dowladda dhexe ugu dhiganaysaa in nin baxsada oo wasiir baxsada oo lagu raadjoogo xabsi ka soo baxsay inay nabadgelyo siiso maxay ka dhigantahay arrinta waxay ka dhigantahay arrintaas maadaama Jubbaland uu ka mid yahay maamulka hadda Jubbaland uu ka mid yahay ninkan Kenya iyo maamulkaasna ay maaragtay si dadban ula shaqeeyaan oo maaragtay aad u yihiin maxaa la jiray close maaragtay ayaga waxay ku fiirsanayaan interest-kooda maaragtay Jubbaland administration-koodii Jubbalandna waxay ka codsatay dowladda oo maaragtay dhexe oo Kenya inay ninkaas u badbaadiso ninkaas ay maaragtay u siiso safe space ay kala shaqeyso ninkaas suu gada gacantii Jubbaland ugu soo celin lahaa marka ilaa intay sii socon kartaa ay kula tahay arrintan haddii shalayto ama isbuucan uu gacan ka hadal balad Xaawa iyo xuduudan Kenya uu ka dhacay ilaa intee laga suurtagal kula tahay in nabadgelyo ay sii siisay janaan dowladda Kenya haddii arrintan ay dhacdhacad ka aani wayso oo ninkan ay naga celin wayso oo Soomaali iyo Jubbaland tiisi ay ka celin wayso oo maaragtay dhibkan oo maanta Mandera ka dhacayo oo maaragtay ay maaragtay dowladda federaalka kala shaqeynayso dhibkan uu sii soconaa labada wadan facal qeyrkooda uu si kala dheeraana maaragtay khasaare oo maaragtay naf iyo maaragtay maalbale uu soo gaaranayo hadaan nahay dadka waqooyi bari
marka Kenya waxaan kula talin lahayn inay arrintan dhexdhexaad ka ahaato maaragtay madaxda kuwa shakhsiyaadka maaragtay interestkooda fiirsanayaan oo maaragtay gaaraska imaanayaan moogi kuwan kale oo faraha badan oo Mandera wajeer laga soo dooranayo inay la shaqeyso hataa gaaris dad laga soo dooranayo waxaa jira aan ku jirin arrintan maxaa la jiray Soomaali inay dadka la tashato oo maaragtay ay solution la imaato oo ay kala baxdo maxaa la jiray issues kan maaragtay federaalka iyo Jubbaland u dhaxeeya inay dhaxgalino maaragtay dhexdhexaad ay ka ahaato oo ay fiirsato sidii lagu ogaani jiray dawlad oo jiraan oo maaragtay oo walaal ah barasaabka ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Roba ayaa shaqaalihii waxyaha kala duwan ee ka howlgalay deegaanadaasi ku wargeliyay in ay guryahooda iska joogaan arrinta maxaa sabab ay kula tahay arrintaas waxaa sababay amni darrada ka jirta Mandera maxaa ka dhalan karaa Mandera maadaama amni darro ay ka jirto oo maaragtay dagaal uu ka jiro laba ciidan ay soo fadhiyaan kuwa ku soo ciidan ay ku soo cararayaan Kenya Mandera ay ku soo cararayaan kuwa kale ay dhinacaas badaxaaba joogaan xabadii dhacayso marka ruux shaqeynaayo ma jirto xabad dhacays Mandera iyo badaxaabana waa laba magaalo is saaran oo maaragtay xuduudkaas yar u dhaxeeya soo xabadii laga soo tuuro ama madfici laga soo tuuro badaxaaba Kenya uu ku soo dhaca xafiisyadii dawladda dhaxeeyay tii dawladda hoosaba dhinacaas oo maaragtay xuduudka ay jiraan marka uu ku saxan yahay inuu shaqaalihiisa kala diro laakiin shaqaalaha la kala diray iyadana saameynteeda leedahay caqabado leedahay dadkii wax u shaqeynaya ma jirto xafiisyada waa la xiraa adeegyada bulshada maaragtay yaraanaya dadkii meesha ka shaqeynaya lacag ay qaadanayeen mishaar ay qaadanayeen magaalada gelinayeen ganacsiga maaragtay si loo noqonaa oo maaragtay dadkii lacagtoodii waxooda way la soo cararayeen oo maaragtay waxay la soo aadayaan ama Wajir ama Garis ama Nairobi la soo aadayaan ganacsigii lacagtii wareeganaysa yaa maaragtay la saameyn ku lahaanaysa suuqa xirmanaa xafiisyada xirmanayaan adeegyada bulshada xirmanayaan caafimaadkii oo marka hore asagoo maaragtay iska sii liitay yaa maaragtay ka sii dara dadkii oo maaragtay shacabkii oo waxaas u idil waayay ganacsigoodii saameyn maxaa la jiray ku lahaadeen naftoodii ku waayeen xoolahoodii ku waayeen haddana shaqaalahoodii u shaqeynaya waayeen waxay sameyn karaan yani dawladoodii iyo kalsoonidii kala noqon karaan oo maaragtay dawladdii ku dhawaayeen oo ay la shaqeynayeen oo ay jeclaayeen yaa jecelkoodii kalsoonidooda ay yaraani kartaa oo maaragtay taas annagana uma fiicno dawladda dhexna uma fiicno amnigeena uma fiicno nabadeen iyo xasiloonta oo gobolkana uma fiicno xaggee ku dhamaan kartaa ay kula tahay arrintan la xiriirta Mandera iyo Balad Xaawe iyo mushkiladan ka dhalatay wasiirkaas baxsadka ah ee Jubbaland xaggee ay ku soo biishoon doontaa ay kula tahay waxay ku soo biishoon doontaa dawladda Kenya iyo dawladda Nairobi iyo Muqdisho inay maaragtay xiriirkoodii soo celiyaan oo ay wada hadlaan waxay ku biishoon kartaa Kenya talooyinka faraha badan oo aan siinayno inay ku dhaqanto oo danaha ay fiirinayso oo shakhsiyaadka oo maaragtay taladooda ay raacayso inay iska dhaafi doonto oo maaragtay ninkan baxsadka oo Kenya ku dhex dhoomaaleysanayo ay iska celin doonto oo maaragtay Jubbaland ku celin doonto ama Soomaaliya ku celin doonto ama Soomaaliya federaalka oo ay gacanta u gelin doonto maaragtay xabsigiisa lagu celin doono ay ku biishoon doontaa waxay ku biishoon doontaa in maaragtay dawladda Kenya ay u yeerto madaxda laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee la fadhiisato sidii maaragtay xal loogu heli lahaa arrintan hadda oo maaragtay dhibkan jiro ay kala tashato okay waa hagaag haddii aan ugu yaraan qaramada midoobay warbixin ay soo saartay toddobaadkan waxa ay sheegtay in ugu yaraan 9,000 oo qoysas ay ka barakaceen gobolka Waqooyi Bari gobolka Gado ee Soomaaliya maxaa ka dhalan karaa iyadana caqabada gobolka Gado haddii ay sidan la isugu soo haysto oo janan iyo ciidamada dawladda ay soo fadhiyaan caqabad inta la ka dhalan kartaa caqabado far badan ka dhalan karaan inta ugu hore wax ka dhalan kartaa in ay qaxootiyada hor leh oo maaragtay Kenya soo galo haddana Kenya tabar uma hayso qaxooti kale oo maaragtay cusuban inay maaragtay u imaado waxaa kaloo dhalan kartaa maaragtay IDPs qaxootiga maaragtay
gudaha oo maaragtay inuu meesha ka abuurmo. waxaa kaloo meesha ka abuurman kartaa nimankii argagixisada ay ka helaan opportunity ay helaan ama fursad ay helaan dadka barakacay inay maaragtay ciidan ay u noqdaan in maaragtay u shaqeeyaan ayaga oo maaragtay dagaalkooda ay maaragtay kala qayb qaataan. caqabada kale oo ka dhalan karta waxaa waaye ganacsigii iyo maaragtay dhaqaalihii oo maaragtay dib u dhaco maaragtay oo yaraado maaragtay dadka livelihoodkoodii maaragtay nolol maalmeedkooda carir u galo ayaa ka dhalan kartaa. waa hagaag haddii aan Jubbaland tagna kadib doorashadii Axmed Madoobe ay dowladii dhexe diiday Jubbaland in ay aqoonsan tahay doorashadaasi Jubbaland oo mushkiladii gobolka Gadana ay sidaa noqotay, maxaa la gudboon maamulka Jubbaland xagee ayuu ku dhamaan karaa isna hawshiisa ayaan isdhihi karnaa? maamulka Jubbaland waxaa la gudboon inay dowladooda federaalka ay isku dhiibaan, dowladda federaalka ay la shaqeeyaan. doorashadii maalin hore oo maaragtay beenadeed oo maaragtay ay hagaajisteen iyadoo ay dowladda federaalka ka soo horjeedo lagu noqdo oo doorasho fiican la galo. markii doorashadaas la galo dadkii la doorto maaragtay maamulka la doorto maaragtay loo dhiibo maxaa la dhihi jiray maamulkii. ciidamadan ay haastaan oo maaragtay qabiilka ku dhisan inay ku daraan ciidamada oo maaragtay Soomaali Army National Army oo laba ciidan la isku daro oo la xoreeyo dhulka hadda dhiman oo maaragtay degmooyinka dhiman oo ay haastaan nimanka argagixisada oo dhibkan oo idil oo maaragtay Kenya way bari iyo waxaan idil saameynayo. haddii intaas ay sameeyaan oo dowladooda la shaqeeyaan oo ciidankooda ay ku darsadaan ciidankii maaragtay federaalka oo federaalka police-ga ay ku liberate gareynaysa districtka dhiman ama gobolada dhiman ay kala shaqeeyaan si maaragtay oo close ah. waxay shaqada maaragtay si fiican ay maaragtay gobolka u xasila Jubbaland. gobolkeena waqooyi bari Kenyana xasiloon iyo nabadan helina. Kenyana waxay meesha kasii joogayso ma jira ilaa meeshii dadka inaga ilaalinaysa waxaa maxaa la dhihi jiray ku filnaana dowladda federaalka iyo oo gacan ka helayso dowladda maaragtay gobolka Jubbaland. okay, uma muuqataa markaa in Axmed Madoobe iyo maamulkiisa ay qorsheynayaan in ay arrimahaasi sameeyaan oo ay doorasho qabtaan oo mar kale maamul kale la dhiso oo dowladda federaalka ay gacanta ku dhigto maamulkaas Jubbaland saameynteeda? كل ولا هذا إنه بلامن دونا أيجي فدرالك يعني أدو هنويناي هذي ما ملو أهان آخرنا هيان شعور تضد كودا شعب كودا يربطان كشعب كي جبلان فيرنا هيان أو مارتي روان إني شعب كاس نبض تكون ولادان يحصلون أيجان دولة فدرالك ويلا هلا يعني أو ما حدا جوز كده فيان أو مارتي سفعني ولا شقين دونا marka haddii maaragtay uu maqlaayo ama uu dhageysanayo culmawdiinka iyo maaragtay bulshada reer Jubbaland cabashadooda iyo talada asaga ay siinayaan Axmed Madoobe ahaan hadduu dhageysanayo oo maaragtay uu nin damiir kale u yahay dowladdiisa ula shaqeynaa. waxaad ka mahadsan tahay. waxaad daawadayaal intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii bandhiga STN waqtiga aawadii. anigoo Cabdijaliil Cusmaan Simo ayaa barnaamijka idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay. waxaa toddobaadkan marti ugu ahaa oo barnaamijka igala qayb qaatay Ciise Maxamed Faradheere oo ka faalooda arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka ee la xiriira xuduudaha isla markaana si dhow ula socday xaaladaha ka jira gobolka waqooyi bari. been ayaa barnaamijka farsameynayay. tan iyo intaanu barnaamijka xiga ku kulmi doona aniga iyo dhammaan martida iyo farsamada waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.